Allahu naxariistay laba wiil oo yaryar ayaa ku dhintay miino kula qaraxday meel u dhow kantaroolka galbeed ee magaalada Berbera. Labadan wiil yaryar ee dhintay ayaa lagu kala magacaabi jiray Shaafici Cabdi Jaamac oo 7 sano jir ah iyo Subeer Cabdi Jaamac 3 jir ah, waxaana ay ahaayeen walaalo. Qoyska carruurtan ayaa Allahu naxariistay reer guuraad deganaa halkii miinadu kula qaraxday. Taliyaha ciidanka booliska Gaashaale Dhexe Cabdi Cali Xayd ayaa iga warbixiyay labadan yaryar ee miinadu la qaraxday walaalaha, waxaanu sheegay in miinada soo qaateen carruurtan yaryari dab ay cunto ku karsanayeen ay geliyeen. arrintaasi waa xaqiiqa, waa arrin ka dhacday mataqaanaa shalayto oo taariikhdu ahayd 27 saacadu markay ahayd 5tii galabnimo waxa dhacday dad badan oo soo guurta ayaa xeebta soo degay. dadkaas waxa weeye deegaano abaara ayay ka soo guureen. labadan carruur yaryar waxay ka mid ahaayeen dadkii soo guurtada ahaa. halka controlka Hargeysa looga baxo dhinaceeda koonfur galbeed ayaa shalayto markay taariikhdu ahayd 27kii 5tii galabnimo labada carruur yaryar ay ka heleen haraagii mataqaanaa hubkii dawladii hore ee wadanka mataqaanaa hagaardaamooyinkii ay ka tagtay ayay ka mid yihiin. hagaardaamooyinkii wadanka ay kaga tageen ayay ka mid tahay. bombay soo qaateen, bombada dabeetana halkii dhariga loogu karinayay ayay geliyeen, sidaas ay ugu qaraxday. labada carruurina ay ku geeriyoodeen. cid ka mataqaanaa falkooda ka dambeysay ma jirto. waa waqtiga cawadaranta la yiraahdo ee dadka reer baadiyo xoolaha ay ka hortagaan hooyadoodna iyo mataqaanaa dad kale inaanay joogin baan filayaa waqtigaasi, waayo haddii ay joogaan waa laga qaban lahaa. laakiinse waxaad arkaysaa in reerka mataqaanaa laga maqnaa oo hooyadood iyo mataqaanaa aabahoodba ay ka maqnaayeen. sidaas ayaana mataqaanaa inamada yaryar ay ku geeriyoodeen. dhinaca kale taliye Cabdi Cali Xayd waxa muslimiinta iyo ummadda reer Soomaaliland ugu baaqay in la soo caawiyo qoyska carruurta yaryar ay miinadu kala qaraxday. cid falkooda ka dambeysayna ma jirto. waxaanu leenahay waalidiinta ay ka baxeen labada carruur ee walaalaha ee kala ah Shaafici Cabdi Jaamac oo 7 jir ah iyo Subeer Cabdi Jaamac oo 3 jir ah oo ay hooyiya aabba wada dhaleen. ilaahay samiriye iimaan ha ka siiyo, badal khayr qabana ilaahay ha siiyo. dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan dawladda iyo mataqaanaayay iyo shacab weynaha iyo tujaarta waxaanu leenahay reerkaasi soo guurtada ah ee abaarta ka yimi ee carruurtoodii halka mataqaanaa ilaahay ku sababay inay ku dhintaan in si naxariis lagu eego lana caawiyo ayaan soo jeedinayaa. isagoo hadalkiisa si watana taliyuhu wuxuu uga digay dadka reer guuraaga inay iska ilaaliyaan goobaha xerooyinka ee ciidamada hore deganayeen ee ku yaala goobaha miyiga ee carruurtana ay ka ilaaliyaan biraha ay soo qaadanayaan. waxa kale oo aan leeyahay soo guurtada aan uga digayaa ama dadka reer miyiga eeriyada soo degay xeryaha ciidamada hore agtooda ah inay carruurtooda aad u ilaaliyaan. waxaanu ka wacyi gelinaynaa in walax kasto qarxado ay arkaan ay noo soo sheegaan oo annaga ay noo soo gudbiyaan si aanu annaguna ugu gudbino ciddii qarxin lahayd ee mataqaanaa hawsha dhamaystiri lahayd. waxa weeye waa hagardaamooyinkii taliskiisii aad barrow ka tagay ayay ka mid tahay oo aan wali inaga dhamaanin ilaa waqtigan aynu ku jirro. sababtoo ah waxa weeye haraatidii ugu dambeysay inagu soo dhiftay ayay ka mid tahay. marka